Welcome back, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum warahmatullahi dhamaan waa shukr badan shidii video cusub. So videogan kaga hadlayay teal and orange ka sidee loo gaaraa adigoo isticmaalaya Photoshop. Dad fara badan ayaa su'aal iga soo weydiiyay oo codsiyo fara badan soo diray sidoo kale iyadoo ay dalbanayeen in aan soo sameeyo video isla kaas oo kala ah laakiin adigoo isticmaalaya Lightroom. So marka dadka isticmaalaya Lightroom ka ayaa damcay in aan soo sameeyo video khuseeya sidii blockbuster filterka u sameyn lahayn iyagoo Lightroom ku wada isticmaalaya. Marka maanta videogan خاصة waxaan uga dhigi doonaa dadka isticmaala Lightroom-ka sidee ay ku sameyn karaan filterka teal and orange-ka ee caanka ah iyagoo isticmaala Lightroom-kooda. So marka haddii aan daawan video-gii kan ka horeeyay ee teal and orange-ka aynu sameynay inagoo isticmaalada Photoshop-ta linkigiisa waxaan ku dhigi doonaa xagga sare wax fara badan baad ka faa'iidi doontaa. Soo daawo kadib nagu soo noqo oo video-gan daawo si aad u faa'iido Photoshop isticmaali inaad sameyn karto sidoo kale aad u sameyn karto adoo isticmaalaya Lightroom. So marka video intaan u gelin marka koowaad hadii ay tahay markii kuugu horeysay channel kan timaado oo wajigaygu kugu cusub yahay magacaygu waxaan la Shakur bin Rashid waxaan ka hadlaa filmmaking-ka waxyaabo khuseeya iyo tutorials practical isku wada jira dhamaan marka hadii aad xiisayso waxyaabaha noocaas maxaad sugaysaa subscribe ana ku kula talinayaa waxaad heli doontaa video fara badan iyo information fara badan oo ka anfaca dhanka filmmaking-ka sidoo kale video-gan hadaad ka heshay fadlan like saar maybe dislike saar hadaad doonayso يعني waxa weeyaan dheel noo dhaxeeya tan ama heshiis I will give you the content you will give me the like or dislike maybe dislike bay si taa doonto marka instead aad daawan lahayd which is bulshada badankeedu marka ay sameeyso video-gan taad ka heshay like saar hadaan ku xajmo dislike saar marka aad like saarto iyo aad dislike saarto labadaba aniga faa'iido leedahay sababta aad like saarto waxaan dareemayaa in video ku cajibiyo oo waan ku soo badinay video-da noocaas anigana dhiirigelin bay noqonaysaa inaan mar walba soo upload gareeyo sidoo kale aad dislike saarto it's not a big deal yani wixii baad keenin biga dhigan tahay anigana faa'iidadeeda waxa ay tahay inaad comment igu la wadaagto waxyaabaha aan u baahanahay inaan improve karayo sababtoo kaliya waxa idin ma sheegay idin laftarkiina waxa idin ka faa'iidaya marka taas laftarkeeda video-di ama content-gan idin soo gelin jiray ayaan wax ka bedelaya soo labadaba aniga faa'iido tahay marka waxaan ka codsanayaa fadlan intii aad daawan lahayd which is most of people ay sameeyaan inaad like saarto ama dislike aad saarto marka aad bad mahadsan tahay yaan video-geena ku dheerayn just 3 minutes oo kaliya ku sameynaa filterkan so let's go waayahay marka soo gasho Lightroom-kaaga aad furto marka haddana si degdeg ah eegno qaybta develop-ka ku dhufan doontaa oo sawirada laga hagaajiyo marka ku soo baxo waxaan dooran doonaa sidii maalintii hore ku tijaabinay kii hore video-gii hore sawirkaasina dooran doonaa oo sawirka koowaad nooca waayahay sawirka markuu halkaa yahay waxba adigoon isdhibin calaamad dheer bad hoos soo jiidi doontaa waxaad tegi doontaa halka ay ku qoran tahay calibration marka aan raadinayna qaybtaas waa saturation-kii qaybtaas waxa weeye luminance-kii hoos u dhaaf qaybta calibration-ka ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa calibration-ka qaybta markaad ku dhufato simple as easy waxaad tegi doontaa qaybta red primary-ga maxaan kugu wadi maalinta hore video-gii halka iyo midigtaad u jiidaysaa huruud buu noqday ha ka warwarin hoos baad u degaysaa qaybta blue primary-ga tegaysaa bidix baad u wada jiidaysaa boom one time ayuu ku noqday teal and orange haddaad u baahato inaad ogaato before and after-ka anigu waxaan taabanayaa Lightroom-ka aniga waxay igu save garaysan qaybta shortcut-iska waxay igu save garaysan markaan doonay before and after inaan eego bracket-iska dhanka bidixda u jeeda bracket-iska dhanka bidixda u jeeda ayaan ku dhufanaya marka taas waxa weeyaan before-kii tan waxa weeyaan after-kii okay aynu gudubna sawirka labaad sawirka labaad markaan taano waxaan ku wari waxaad tegi doontaan qaybta ay ku qoran tahay calibration waxaad dooranaysaa sida caadada waxaan kugu wadi red primary-ga kadibna dhanka iyo midigtaad u jiidi hoos baad uga soo degi doontaa waxaad dooran doontaa qaybta blue primary-ga dhanka iyo bidixda ayaad u jiidaysaa boom sidaas ayaanad ku samayn karaysaa teal and orange adoo isticmaala Lightroom haddana ku xigsiino sawirka saddexaad ee ugu dambeeya sawirka caanka ahaa ee diyaaradda calibration-ka isaga laftarkiisa uu ku taagan yahay marka waxaad samaynaysaa qaybta red primary-ga xaggaas sida jiidaysaa markaad qaybta xagga u jiido qaybtii blue primary-gana dhanka iyo waxaad soo jiidaysaa bidixda marka labada kale ee aynu doonayna aan jafkarayna waa kuwa waxa weeyaan teal-ka iyo orange-ka labadoodii number ee hexadecimal waa kuwa dad marka tusaalaha Photoshop isticmaalayso markaad ashyaada sameynayso waxay leedahay kalarada aad dooranayso xagga hoose waxa ku qoran meelaha soo kala hexadecimal-ka number-ka marka aad inta geliso orange-kaas ku soo bixi haddaad inta gelisana teal-ka ama blue-ga ayaa ku soo bixi marka sidaas ayaad ku achieve garan karaysaa teal and orange-kii mar labaad adigoo isticmaalaya Lightroom. Well, ladies and gentlemen, inta nooga kaado video-geenu waxaan rajaynayaa inaad wax fara badan aad ka soo faa'iiday 3 minutes kaas oo wax ku anfaca ay noqdeen
taas aniga mar walba ii muhiima markaa waxaan jeclahay inaad baratayna maanta sida Lightroom-ka loogu habeeyo oo loogu hagaajiyo sawirada oo loo sameeyo filterka Hollywood Blockbuster-ka Teal and Orange-ka mar labaad waxaan ka codsanayaa video-gan dad ka sheena like saarto sidoo kale aad subscribe channel-ka tiraahdo oo nagu caawiso inaad family-geena filmmakers-ka aad ku soo biirto intaan ku kulmi doono video ku xiga waa Shakuur Binashada idin leh peace